waayahay dhegaystayaal haddana dhinaca ciyaarahan waxyaar ka nyagaynayna ciyaaryahanka u dheero Manchester United oo lagu magacaabo waxaa dhihi jiray magaciisa muxuu ahay Harry Maguire keeskiisa ilaa ee maanta lagu daba jiraa magaalada Manchester dar had wiil yar u dirno dhinaca masalaana ka imaade markaasuu noo soo sheegay warkii oo wax yar ka dhiman Harry Maguire oo laga sheegay asoo magaalo ka adeeganay nin kale inuu dhahay sawiraan kula gala markaasuu dhasoori ila gelin maan ma soo qabaysanin markaasuu heedha madax bujiye heedha markuu bujiye askarta xumada iswaraaqiisa ku dhigtaba ilaa yamaan jeeluhu macdhahay haddana dhegaystayaal warkii oo wax yar ka dhiman baan gulangalaynaa dhegaystayaal ka imaada buul iftiin gaar ahaan taangi agtiis Farxaan Cali Mukhtaar waraa Farxaan warka soo siida dhegaystayaashan iyo salaam wax yar barnaamijkii aan ganyaayay oo tahay barnaamijkiisa shata ee ciyaaraha dib ayaan ugu soo laaban doonaa balse hadda wararka dhabta ah ee ka jira caalamka ugu horeeya aad ku maqli doontaan wararkana waxaa kamid ah Talia Ramole oo gabar u guurinaysa shirkadda Buale Media qodobka kale ee xiga waxa weeye Talia Landere oo hees kale la qaaday fanaanada ugu buuran Muqdisho Xasan Top iyo heesta qarniga Bile Wako markaasi talantalis masaba khayb u ka yahay Farxaan Fankar qodobka kale aad maqli doontaan waxa weeye qaaliladan walaasheed oo ka carootay arooska gabar Xasan Top dartiis loo dhibaateeyay waxaa kaloo maqli doontaan boqorada beachka Muqdisho iyo Sharma Boy iyo xaaskiisa oo arrin cajiib ah qabsatay yaabka adduunka qodobadaasi oo faahfaahsan iyo wixii ku soo kordho waxaad ku maqli doontaan wararkeena caawa fiidki waayahay dhegaystayaal warkaas hadhow maqla doontiin golbo markaad sir iska seexatiin maxaan idilaa warkaas furni ugu dhaafin reer masalaan ijaara kawaasalo khuluqo sangaaylo ilaa tumtish geedaha la sifulo maqrib markii la tukatiin ilaa idaacada waan ku yara rafaadsanna because geedkan waayarka korsaarne nin baa naga dajiye ciyaarta naga daa Farxaan barnaamijka dadka salaam inta aad ka bixin idaacad walaalow oo taad baad u mahadsantahay barnaamijkaaga waxaan leeyahay dhageystayaashu waan idin salaamaya meel walba aad joogtaan aad bana idin salaamaya waxaan leeyahay qodobka dooda ee maanta aad faaqidayso dabcan si wacan qayb ha uga noqdaan oo ka soo qayb qaataan insha Allah walaal asanti sana arrin baa ii sheegay rabto show waxaad jirtay mid inaan rabo aan kula wadaago barnaamijkaaga dabcan waxaad ku falanqaysaa arrimaha la yaabka leh iyo waxyaabihii markaas caalamka ka jiro siba kuwa ciyaaraha arrinkani ciyaaraha qayb maaha balse wiilka ayaa ciyaari haya wuxuu yiri waalidiintiisa iyo horta wuxuu ku soo ogay dacwad oo markaas si ku eedeynayo sababtay u dhaleen isaga oo raali ka ahayn in la dhalo misaba iyaga inay dhalaan waxa wadanku uga dhac dhegaystayaal waa maqlahaysiin waxa lala yaaba waa wax laga naxaba oo asaga muxuu dhahay waalidkiis asoo raali ahayn uu dhashaba waa yaab markaas muxuu rabay miya in loo sheego waa la soo wacaya numberka idaacadda waa la soo wacay miya ha qababar barnaamijkaaga weli u socdaa min u socdaa ha okay halo dhegaystayaal ana la hadlo sug وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سأكون ببرد أنا كو إهرقشين. وحن كبر الناس كده في مقعاو يا ماشي أنا قصة وعي جيد ما سارن. جيد ما سارني. ها. بس حلو دي محاتي لفعاء برنامج تقبل روانا لفعاء. ليش ورمقعاو إيش أغرت ماشي قصة وعدوان كسه. ماشي كاسة برا يود. برايوز ما شاء الله وسلامتين برنامجك كوسو دوا ولا محاكا لهي وان دوي برنامجك وان كدوي دمير بعدي كما قال ايه بافيا ولا ريانو دمير كما قلنا دمير قدود ويغا مقولي دغانك وحيرا مردن مدو كله وata aad ma santa barnaamijka qolobka daa u guday gali karto soomadiisana waa saddex leeyan dhiganay waa ka raali ahaanayna dhageystaasi ha ka raali ahaanin dhageystayaal dameer baa ku dhumay magaalada Burra Youth samay dhihin dameer guduud oo afar wad qabo ayaa dhumay walaal dameerka hadda aragtiin maxaa soo wici kartiin numberka kala la soo wacaya ma kan deeno ugu lahay qaban aha dhageystayaal dameer baa dhumay barnaamijka dhan dameer buu isku bedelay laakiin umaynin geed ku wadba dameer ma la isku halaynaya ogad gabdhahan
ninka inuu dameeriyaa laga yaabo eelada ninka iga dhumaba oo tahay qodobka dooda ee barnaamijka wuxuu ahaa dabcan maxaad ka leedihiin ciyaaryahanka Harry Maguire oo nin heedhaa ku dhuftay markuu dhahay sawir aan kula galo markaasuu dhahay Maguire aniga ma soo qabaysin iga wareeji ninkina wuu diiday sawir buuxuu ku galay markaas abaha la heedhaa inta lagu dhuftay kiliyan uu kala baxay keeskiisa ilaa ay maanta lagu daba jiraa marka miyuu xiran yahay mise dibaddu jooga duwada lagu xiraba Africa iyo duwad dadka duwada ay ku ordaan waa xireen dhegeysta kale ayaan soo kale waryaada halow war idaacadda waa Kawasara FM halow war aslan baa telefoon ma loo go'aysin أنا ما أولا ليال ودتك برامج كأحل سارندي أنا قو معها دمارك ملال لا وردمار راتيس على وش هذا أصلا مثلا وده مرة برا سكتاف دنا إجارة بوسس عند دمارك ولا ليال كتبقل ميسا قوانا سينا دبري وانقور روا وحقو قرت مالا وحقو قوران لا قوري كنو ويفري عقلك وانفرفري وطاي فيري ضفر لي أنا الرب يقدي الرب وحبا مني مقلاي دماركي راجع طلع داتين كواسالة FM وردقيسي دمارك الراب دمار ما كاريب ريبولا وانكو قوري دمارك وانكو قوري ضفر لي أنا بايان لا يعني ألابتي ودن marka ila cad ahaan xukuumo qaban karna ilaahay ku saacideeyo walaal hana caabaynin mar dambana hana soo wicin please dhegeystayaasha hal su'aal weydiino qodobkii ahaa in wiilkani uu waalidiintiisa ku soo ogay dacwad markaasi ah in ay isaga ay dhaleen soo raali ka ahayn dabcan dhegeystayaasha si ay u arkaan wiilkaasi miyuu khaldan yahay mise xaq buu leeyahay inuu waalidiintiisa ku qabsado maxay u dhaleen isagoo markaasi raali ka ahayn in la dhalo aniga ahaan raali ma ahay ninka uu qaldan yaba aad buu qaldan yahay because waalid maxay kulmaan inay asa keenaan marka waqti oo loo sheego ma la haynin waqti labada isku hayeenba waxay soo baxayna wiil iyo gabar laakiin maxkamaddu waxaa laga yaabaa inay asaga garab istaagto maxkamadda lagu sheegay gaalna wuxuu ku dhaqmay kuma dhaqmi karno anaga inaga dhaqankeena maaha waxaan kuma dhaqmi hayno waxaan doonihaynaa in dhegeystayaashu ay ogaadaan arrinka jiro hadda caalamka waxaa ka jira sax wiilkaasi marka wuxuu dacwad maxkamad geeyey in waalidiintiisa ay dhaleen isagoo la wareysan marka waalidku siduu u wareysan lahaa asaga markan qaladkiis maxaa waaye meeshuu ku dhasha miya haddaan fiiriyo caddaan guru inuu ku dhasho taasay ka aheedba allah muxuu waalidna weligay ma maqlin qof leey kuma qanacsani waalidkay iyagoo ii sheegin inay dhalaan waa tahay marka ninkaas nin waalan waay asaga iyo gabadhi dameerka raadinaysa kor baa isku fiicanba inay isguursadaanba because labadoodba ma arkahay inay meel u socdaan sax waa kaas waayahay dhegeystayaal mar dhow qadka baa furan qadka waa furan sooma qadka waa furan yahay qadka wuu furan yahay waa soo wici kartiin nambara u sheegteen numberku waxaa weeye eber 7 30 2 eber 5 hal 8 reverse call nagala ilaaliyo bala soo wacaya hello assalaamu calaykum magacaaga iyo meesha aad joogto magacayga waxaa la dhahaa tuush cali walaale waxaana kaala soo hadlahayaa halkaas iyo Rift Valley ma la yiraahdo dalka Kenya kusoo dhawo barnaamijka wiilkaad maxaa ku samayn lahayd wiilka waxaan ku samayn lahay lafti taagan baan jibin lahay صح waalidka dhalayna way gardariin maxay u dhalayn horta واي هاي adiga ilmo ma dhashay aniga ilmo waan dhale صح meeqa waxaan dhalay 5 baan laakiin ilmahayga waa la tashtaa markaan dhalayo ninka ma la tashataa masalmi ilmaha waa la tashtaa maxaa dhii markaad la tashay ma rabtin adduunyada inay ina keeno ama inaad caloosha isaga jirtaan baad rabtaan oo caloosh 9 bilood ka badan way ku aan kartaa 9 maxay ta 10 baa caloosha ku jirto diidanay soo baxda 5 way soo baxdeen waayahay kolba dhuusaan u malaya taas dhageystayaal oo iska hayn karto waa mahadsanta ayahay waa adiga mudan waayahay dhageystayaal waan ka soo gabadha meesha noo soo wacay waa taad baa mahadsanta shindays qayb ka noqo Kawasala FM okay thank you very much brother aad baa mahadsanta waxaan dhilahay gabdhaha gumarey joogaan waa nin kasaya ku digiin qof kasaya Kawasala ilaa iyo kolbiyow dhulkaan uu joogaa marka aan soo gabagabayno waqtiga warkaas soo dhawaaday anigu waan kasii dheeraanaya waqtiga warka waa la soo gaaray adiga ayaa la doonaya inaad marka barnaamijkaaga aad soo afmeerto
waayahay dhegaystayaal aad iyo aad u mahadsantihiin inta kasoo qayb gashay barnaamijka maanta kuwa telefoon soo direen oo soo geli waayna maxaan ilahay baqti nasiib ayaa xumaada maanta mar kale soo dir kartiin waa intaas iyo nabadgelyo joogine nolosu waa macaan mare